In ka badan 10 qof oo ku jira gudoomiyihii degmada Marka, Cabdulaahi Cali Waafow ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu inoo sheegay mid ka mid ah mas'uuliyiinta gobolkaasi. Qaraxan ayaa mas'uul codsaday in aan magaciisa la shaacin sababo amni la xiriira. Uu sheegay inuu geystay qof soo midaamiyey uuna ka dhacay agagaarka xarunta degmada Marka. War-saxaafadeed ka soo baxay kooxda Al-Shabaab oo ay ku baahisay barahooda warbaahineed ay kooxda ku sheegatay mas'uuliyadda qaraxa magaalada Marka oo ay sheegtay in lagu beegsaday gudoomiye Waafow. Dhinaca kale, qarax labaad oo ka dhacaya degmada Afgooye ayaa lagu soo waramayaa inay sidoo kale ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo rayid ah. Magaalada Muqdisho ayaa iyadana qarax ka dhacay la sheegayaa in uu ahaa mid ku qarxay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo diyaarinayay qaraxaasi.